Bismillahirrahmanirrahim. Waxaa bilaabi doonaa Microsoft Excel Section 1. Waxaa leenahay Objectives-ka. Waxaa ku qaadan doonaa Introduction, Starting Excel, View of the User Interface, Backstage View, Formula, waxyaabahaas arki doonaa. Waxaa leenahay Introduction. Microsoft Excel 2013 is a spreadsheet program that is used kaasoo loo isticmaalo to manage in lagu maamulo, analyze lagu falanqeeyo, and present data xogtana lagu soo muujiyo. Marka Excel waxaa kusoo koobaynaa waa spreadsheet program kaasoo loogu talagalay in lagu maamulo ama lagu analyze gareeyo xogtana lagu soo muujiyo. Marka waxaa leenahay marka Excel inta badan waxaa loogu talagalay xisaabaadka wixii la xiriiro ayaa aad loogu talagalay. Waxaa leenahay marka starting Excel 2013 from the start menu marka laga soo kicinayo. Kaliya waxaa leenahay start button, click all programs, Microsoft Office 2013, and then click waxaa Excel 2013. The start screen appears kusoo muuqda in the right pane. Kaliya waxaa siinaysaa blank workbook. A new blank workbook opens kusoo furana in the program window. Waxaa leenahay sawirka noocan kusoo bixi doono. Sawirka marka waxaa ka isticmaali kartaa meesha u horeysa blank workbook inaad ku dhufatid ama qaybahan kale wax diyaarsan inaad soo degsatid. Waa arki doonaa. Waxaa leenahay marka view of the user interface. The Excel 2013 program window is to navigate and simple to use. Aaduu macnaha lagu shaqeyn karaa waana fududa in la isticmaalo. Qaybta waxaa noo sheegayaa interface-ka uu leeyahay Excel-ka. Word-ka waa soo aragnay. Waxaa laga yaabaa marka qaybo badan oo Word-ka kusoo aragnay in internet lagu soo celiyo. Marka waxaa leenahay Codex Toolbar oo kale hore usoo aragnay, Ribbon waa soo aragnay, Title Bar waa soo aragnay, waxaa kaloo soo aragnay waxa la yiraahdo Status Bar waa soo aragnay, waxaa soo aragnay Scroll Bar waa soo aragnay, laakiin qaybahan kale maana soo arkin. Marka qaybahan kale waxaa ku jiro Name Box oo kale, Active Cell, Formal Bar, Workbook, Sheet Tab. Practical gadaalka arki doonaa waan sharxinaa insha Allah. Waxaa leenahay marka waa kuwaana Title Bar-ka hore usoo sheegnay, Codex Toolbar-ka sidoo kale, Ribbon-ka waxaa leenahay asagana waa soo sheegnay, Formal Bar, Name Box. Formal Bar marka wuxuu kasoo muuqdaa qaybta hoose ee sheeg. Marka Formal Bar waxaa leenahay wuxuu kasoo muuqdaa qaybta hoose ee Ribbon-ka, wuxuuna soo bandhigaa daatada lagu keediyo Formal Bar-ka qaybta Active Cell-ka. Sidoo kale it can also be used waxaa loo isticmaali karaa to enter ama edit a cell contents in lagu soo geliyo kale. Name Box waxaa dhihi karnaa wuxuu kasoo muuqdaa dhanka bidixda ee Formal Bar-ka, wuxuuna soo bandhigayaa Active Cell address-kiisa soo bandhigayaa of the name of the selected cell-ka markaas aad dooratay, range-giisa ama objective soo bandhigayaa. Waxaa leenahay marka Workbook window waxaa leenahay appearance wuxuu kasoo muuqdaa qaybta hoose ee Formal Bar-ka, wuxuuna soo bandhigaa qayb kamid ah Active Worksheet-kaaga soo bandhigayaa. Waxaa leenahay Sheet Tab waxaa leenahay each worksheet wuxuu leeyahay tab kaasoo marka soo muuqanayo qaybta hoose ee workbook window. Sidoo kale waxaa la display wuxuu soo bandhigaa magaca worksheet ku soo bandhigaya. Scroll bar marka iyadana waxaa leenahay wuxuu kasoo muuqdaa dhanka midigta ee hoose ee workbook-kaaga. Sidoo kale waxaa leenahay wuxuu ku suurtagelinayaa in aad ku samaysid rows worksheet inaad ku dhex socotid. Sidoo kale status bar-na hore usoo sheegnay, Word-ka ku aragnay. Waxaa leenahay marka sawirka wuxuu noo sheegayaa tabs-ka hore usoo sheegnay. Tabs-ka labaa loo qeybiyo, waxaa la dhahaa Standard Tab iyo Contextual Tab. Groups-ka soo aragnay, Dialog soo aragnay, Collapse Ribbon hore usoo aragnay waxaan dhan. Backstage View ka bilaabi doonaa cashirkeena ugu horeeyo insha Allah. Practical aan galno. Sida caadiga aan naqaan marka la soo kicinayo Excel-ka waxaa leenahay waxaa soo kicisaa Excel markaa soo kicisid marka ugu horeyso wuxuu kusoo muujin doonaa sidan. Markii lasoo start gareynayo waxaa leenahay start button-ka imaaw, kadib waxaa qortaa Excel markaa qortid ku dhufo, kadibna wejigaana kusoo bixi doono. Wejigaan marka kusoo baxo marka waxaa doorataa midka markaas aad u baahantahay. Tusaale waxaa rabaa aniga blank workbook aan rabaa. Marka midkaan waa midka ugu horeeyo, waa blank document oo kale. Marka ku dhufanayna kan. Marka ku dhufano sidaan oo noogu soo baxo overview hore usoo sheegnay qaybo kamid ah. qaybahaas waxaa la dhihi karnaa ribbon-ka kale waa soo aragnay,
title barka waa soo aragnay. Waxaa kaloo soo aragnay isha quick access toolbarka oo kale soo aragnay. Marka qaybahan ugu cusub waxaa waaye namebookska oo kale. Namebookska wuxuu soo muujinaya tusaale hadda waa soo qaaday active cellka meeshaan aan keenay, intaa keenay wuxuu soo bandhigayaa markasta xarafkii aad joogay M8 oo hadda inta kusoo bandhigay. M8 waxaa waaye tusaale cellkan meesha addresskiisa uu degan yahay. Wuxuu degan yahay markii la fiiriyo column ahaan M, markii la fiiriyo row ahaanna wuxuu ku aadan yahay 8. marka isku qabo M8 sidaas ku imaado. Haddii aad bedelo meelaha camal aad dhaho wuxuu sameynayaa F3 soo ma jeedid. sidaas marka addresska uu ku sheegaya. waxaan leenahay formula bar ayadana wuxuu sameynaya haddii tusaale meeshaan wax ku qoro tusaale 2 3 wuxuu sameynaya automatic meeshaan kusoo qoraya. haddaa ka tiro aanu formula barka joogo wuu ka tirmi karaa soo ma jeedid. formula barka marka sidaas waxaa lagu sameyn karaa inaad data aad kusoo gelisid ama aad wax kaga bedeshid. waxaan leenahay formula barka qaybtaas u sameyn kartaa. waxaa kaloo jiro waxa la sheetkan marka wuxuu sameynayaa mid cusub aad sameysan kartaa. waa arki doonaa sida loo sameeyo, laakiin marka u horeyso aad soo geshid excelkaaga active sheetka halkan xabaa markaas diyaar kugu ah meesha. okay, workbook iyo worksheet haddaa kala fahanno oo isku dayno waxaa leenahay workbook waxaa dhihi karnaa documenti ahaan meesha lagu siiyo workbook meesha lagu siiyo soo ma jeedid. waxaa leenahay worksheet waxaa leenahay meeshaan ku shaqeynaysaa la yiraahdaa ama qeybahan oo kale waxaa leenahay worksheet. sheetna waa la dhahaa, worksheetna waa la dhahaa. marka sidaas waxaa ku kala saarnay worksheet iyo workbook. waxaan arki doonaa sida loo isticmaalo dhammaan xisaabaadka iyo sheetska, sida loo bedbedelo magacyadooda, kuwa cusub sida loogu soo daro insha allah. Wamaadsantihiin. intaan ugu egaa xashirkeena. Wamaadsantihiin.